munaasabad si heer loo soo agaasimay isla markaana lagu caleemisaariyay maamulka cusub ee degmada Afbarwaaqo ee gobolka Mudug ayaa ka dhacday degmadaasi waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan galmudug oo ay kamid ahaayeen wasiiro, xildhibaano, siyaasiyiin, odayaal iyo waxgarad kumanaan shacab ah. degmada Afbarwaaqo ayaa qiyaastii 180 kilomitir u jirta magaalada Gaalkacyo waxayna in muddo la daala dhacaysay colaado u dhaxeeya beelo walaalo ah oo halkaasi wada dega, balse hadda waxay ka soo kabanaysaa marxaladii kala duwan ee soo martay. qaar kamid ah odayaashii waxgaradka deegaanka oo ugu horeyn ka hadlay munaasabada ayaa ka warramay marxaladii kala duwan ee soo martay degmada Afbarwaaqo iyagoona xusay in shaqo muhiim ah ay hortaalo maamulka cusub. taariikhda ay leedahay waxa weeye taariikh dheer bay leedahay. magaalooyinka dalkan taariikhda ku leeyahay ka mid tahay, xoolaha ha ahaato, xagga kale ha ahaato, badda ha ahaato, dhinac kasta magaalo taariikh leh oo aad iyo aad dalka looga yaqaan. deegaankan in wax laga qabto oo uu noolaado oo dib loo soo celiyaa laga hadlayaa. maxaa ka horeeya weeye su'aashu? waxaa ka horeeya nabad in laga dhigo, oo nabad uu noqdo qof nabad haysta. maadaama la cadeeyay aan aragnana nabad darro magaaladan waxa sida u baabaashay in nabad darro tahay, waa inaan go'aansanaa nabad inay noqoto. waa inaan go'aansano, waa in deriska nabad magaalada aan siino, inaan u hambaliyeeyo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Afbarwaaqo oo cusub. waa u ducaynayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xilka la idin dhiibay hay'ad ku ceeb asturo. Cabdullaahi Jaamac Dhoore gudoomiyaha cusub ee degmada Afbarwaaqo ayaa asna sheegay inuu ka shaqeyn doono horumarinta deegaankaasi. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan aqbalay oo si wanaagsan u aqbalay sida wanaagsan oo quruxda badan oo xilkii uu Maxamed Xasan hayay ee Afbarwaaqo ugu soo wareejiyay. aniguna waxaan ballan qaadayaa sidii la igu wareejiyay iyo si ka qurxoon inaan u maamulo oo u socodsiiyo oo waxaan u qaban karo aan u qabto. intaas ayaa ballan qaadaya. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Xayir oo ugu dambeyntii ka hadlay xafladda caleemasaarka ayaa sheegay in dhibaatooyin badan ay ka jiraan deegaanka una baahan yihiin in wax badan laga qabto. soo marnay wada dheer Gaalkacyo laga soo bilaabo ilaa aan ku nimaadno Afbarwaaqo. waxaan ku soo aragnay dhibaatooyin badan oo ka jira Afbarwaaqana ay ka mid tahay. midug gooniyana waa iga muuqataa. labada arrimood aan soo aragnay waxa weeye biyo la'aan wax la yiraahdo oon ceelal aysan ahayn halkaas. wax ceela kuma aan soo arag. meelaha qaarkood la sheegay xataa biyahooda kuma weysaysan karto hadaad wajiga marisid wajiguna ku soo dhacad ka baqaysan. meelo biyo culus aan la cabi karin, wadada laftigeeda oo ahayn wada la mari karo. labadaas waa laba arrimood oo la qabtaan ilaa laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa Afbarwaaqo dadka degan baad la qabtaan intaan aragnay. waxaa dheeraad aan halkaan ugu nimid Afbarwaaqo markaan burbur badan baa ka muuqda. markaan ilaa xalay aan si xuraamana waxaan ogaaday inay ka jirto ammaan darro, inay ku kala qaxeen dadkii deganaa, qaarba inay meel degan yihiin. Afbarwaaqo degmo ma noqonayso mana istaagayso ilaa dadkii deganaa ay ku soo noqdaan. علي نور عين جوجوك تي في Gaalkacyo.